dunida aynu ku nool nahay sanadba sanad ka dambayso waxa ay shirkadaha codsanayaan dad xirfadlayaal ah. mar sii horeysay shirkado caan ah ayaa ku dhawaaqay inay shaqaalaysiin doonaan cidda ay u arkaan inay taqaano xirfadda ay u baahan yihiin iyadoo wax shahaado gaar ah lagu xujeynin. internetka aan isticmaalno 15 sano ka hor sidaan ma ahayn. waxaa dhibaato loo mari jiray sidii aad muuqaal dhowr daqiiqo ah ku daawan lahayd, balse ilaahay mahadii waxaa hadda joognaa xilli dunida oo dhan ay noqotay one click. waxaa si buuqlaan ah ku daawan kartaa muuqaalka aad doonto intuu doono ha ahaado xaddigiisa. waxaa baran kartaa jaamacad adigoo gurigaaga jooga. waxaa isbari kartaa xirfad adigoo aanan fasal, college ama jaamacad xaadirin. fursadahaas waxay hor yaalaan cid kastaba oo internetka isticmaasho. waxaase ku liibaanay midkii iska riixay mowjadaha waaweyn ee internetka kusoo tuuraya, ha ahaadaan TikTok oo aad saacado badan isaga jirto, Facebook oo aad iska dhex dabaalanayso, iyo YouTube oo aad muuqaalo aan waxba kugu soo kordhinayn ka daawanay. haddaba waxaan isku dayayaa inaan kuu soo gudbiyo taxana la magac baxay hay'adaha bilowga nashqadeynta ama graphic design. qofka doonaya in uu hadda bilaabo xirfadda graphic design, waxaan isku dayayaa inaan asaaska xirfaddan aan u bidhaamiyo. haddii aad xiisaynayso nashqadeynta aadna ka fikirayso inaad noqoto nashqadeeye, haddaba soo dhawow. taxanahan waa kaagi. waxaan kaga hadli doonaa mowduucyada nashqadeynta laga soo bilaabo waa maxay nashqadeynta ama graphic design, xirfadaha aad u baahan tahay si aad u noqoto nashqadeeye, aragtida ama theory-ga uu leeyahay nashqadeynta, waxbarashada dheeraadka aad u baahan tahay, qalabka aad u baahan tahay si aad u noqoto ama u bilowdo nashqadeynta, software-ka loo adeegsado nashqadeynta, iyo wixii tusaale ah ay ku aadan wareysiga shaqada ama interview-ga. taxanahan waxaa loogu talagalay qof kasta oo heer kasta ah. waxaa koorskan ku doortay in aan muddo badan ku shaqaynayay ilaa haddana aan ku shaqeeyo xirfaddan. waxaan jeclaystay khibradda yar ee aan u leeyahay majaalkan inaan la wadaago bulshadeeda, sidoo kale aan wada faa'iidaysano. waxaan diyaarshay taxanahan oo aan kugula wadaagi doono aasaaska nashqadeynta si aan u siiyo talo sare u qaadayso designerka levelka uu doono ha ahaado, si uu u helo wax badan oo ku saabsan graphic design iyo industry. waxaa laga yaabaa inaad iskuul ama jaamacad dhigato oo aad ka fikirayso mustaqbalka shaqada aad qaban lahayd, ama waxaa laga yaabaa mustaqbalka inaad ka fikirto qaabkii aad ku bedeli lahayd shaqadaada. sidoo kale waxaa laga yaabaa inaad la yaabto designka waxa uu yahay. taxanahan si uu u noqdo mid la wada fahmi karo, waxaan u kala jebiyey 4 cutub oo cutub kastaba hoos imaanayo dhowr cashir. cutubka koowaad waxaan kaga hadli doonaa graphic design iyo aragtida nashqadeynta. tani waxay barasho lama huraan ah u tahay qof kasta oo rabo inuu wax badan ka ogaado nashqadeynta ama graphic design. haddii aad tixgelinayso shaqooyinka graphic design-ka aadna ka fikirayso in ay tahay shaqada saxda ay kugu habboon iyo in kale, waxaan kaga jawaabi doonaa su'aalahaas iyo kuwo badan oo muhiim ah cutubka labaad. cutubka saddexaad waxaan kaga jawaabi doonaa su'aalaha ay ka mid tahay sida aad ku noqon lahayd nashqadeeye. cutubka afaraad waxaan kaga hadli doonaa suuqa design-ka waa sidee, mustaqbalkana sidee la filayaa inuu noqdo. haddaba taxanahan soo socdo waxaa ku bidhaamin doonaa mowduucyo muhiim ah oo aan kaga jawaabi doono su'aalaha aasaasiga ah. dhammaadka taxanahan waxaan rajaynayaa inaad si fiican u fahmi doontaan waxa la yiraahdo graphic design iyo sida aad ku noqon lahayd designer ama nashqadeeye. haddaba si aad ula socoto taxanaha oo aan soo gelin doono barteena YouTube-ka ee Xalhaye Graphics, sidoo kale waxaad nagala socon kartaa ogeysiisyada aan soo gelin doono barteena Telegram-ka. waxaadna linkiga ka heli kartaa muuqaalkan qaybtiisa hoose haddii aad ka daawanayso YouTube. haddii aad ka daawanayso Facebook, waxaad ka heli kartaa kommentiga koowaad. waa inuu kulanti dambe oo xiiso leh. mahadsanidin. isku soo noqod wacan. darsigan waa darsigeennii koowaad ee taxanaha aasaaska nashqadeynta. waxaan ka cudur daaranayaa ereyada qaar ee Ingiriiska ah oo aan u waayay af Soomaali saxan oo la isku raacsan yahay, balse waxaan aaminsanahay inaad sidooda ku fahmi doontaan. aan gudaha u galo casharkeena. ka soo qaad waxaad tixgelinaysaa inaad barato graphic design, waxaadna rabtaa inaad wax badan ka barato. muuqaalkan waxaan rabaa inaan ka wada niqaashno waxa uu yahay graphic design.
inta badan dhalinyarada iyo dadka ka fekeraya barashada nashqadeynta oo raba inay ogaadaan waxay isweydiinayaan waa maxay nashqadeynta iyo haddii ay iyaga ku habboon tahay. su-aashan waxaan marar badan u arkay inay tahay su-aal aad u adag maadaama aysan run ahaantii lahayn jawaab fudud iyadoo oo aan la helin wax sharaxaad dheeraad ah. hadda haddii aad Google garayso oo aad dhahdo waa maxay graphic design, wuxuu kuugu jawaabi doonaa in nashqadeynta grafika ay tahay farshaxan ama xirfad isku darka qoraalka iyo sawirada xayeysiisyada majalladaha ama buugaagta loo isticmaalo. inkasta oo aan u maleynayo inay jiraan wax ka badan taas, muuqaalkan waxaan isku dayi doonaa inaan ka jawaabo su-aashan oo aan ku siiyo fikradda aan ka helay waayo aragnimadeeda. haddaba waa maxay nashqadeynta grafiyada ama graphic design? waa maxay? hagaag aynu si fudud ku bilowno. waxaan haysanaa laba shay, graphic iyo design. graphic ama graafka waxaa leenahay waa wax muuqda kaas oo la xiriira artistka ama malawaalka iyo wax kasta oo la sawiro. sidaa daraaddeed qaybta graafka ee nashqadeynta grafiyada waxay ka kooban tahay waxyaabo muuqaal ah hadba sida ay isugu xirxiran yihiin qaybaha graphic designka. waxyaabaha asaasiga ah ee muuqaalka ah ee isku dhafan si ay u abuuraan nashqad sawireed waxaa ka mid ah qodobada soo socda: line, color, shape, texture, form iyo typography. waxaan dooranaa visual element si aan u habayno oogada sare ee qaab dhismeedka si aan u gudbino fikrad. qaybta xigta waa design, kaas oo aan ku go'aaminayno qaabka uu u muuqan lahaa inta aanan sameynin. sidaa daraaddeed designka waa fikir, problem solving iyo qayb theory ah. markii la joogo graphic design waxaa jira xeerar loo tixgeliyo. xeerarkan waxaa loo yaqaanaa the principle of design. marka principle of design-kan waa kuwa xiriir la leh midba midka kale, waxaana laga arki karaa design kasta oo la sameeyo. design principle waxay designka ka dhigaan wax aad u fiican, halka design theory uu micno u yeelo ama u cadeynayo inay jiraan wax ka dambeeya shaqada aad qabatay ama designka aad samaysay. waxaa jira wax la yiraahdo the key principle of design, waxayna kala yihiin contrast, hierarchy, alignment, balance, proximity, repetition, simplicity iyo function. markaan isku geyno visual elementska iyo design principle waxaa inoo soo baxaya graphic design. marka waxaa dhihi karnaa graphic design ma ahan in drawing la sameeyo, sidoo kale painting ma aha ama coloring. graphic design kaliya maaha in la sameeyo poster ama logo degdeg ah lagu sameeyo. waxyaabahan waxay la micno tahay xirfadaha iyo dhammaadka shaqada uu qabto qofkaas. graphic design ma ahan kaliya in la sameeyo waxyaabo u muuqdo qurux. graphic design waa organize in la sameeyo iyo in la soo jeediyo xog la hormariyay iyada loo marayo creative process. shaqooyinka qaar ee graphic design waxaa waajib nagu ah inaan fahanno informationka ama xogta, messageka iyo briefka ama documentiga uu qofkaas wato, kadibna aan research sameyno. inta aadan gudagelin waxaad sameysaa fikir ama inaad fikirto isku day, qiyaasid sameey, kadibna horumari. sidoo kalena waxaad sameysaa xogta lagu keenay xalkeeda si la iskula xiriiriyo xogta lagu keenay ama sheekada lagu sheegay ama fariinta lagula wadaagay oo aad u bedesho wax muuqda. kaliya hal mar ayaan haysanaa xog qalalan, taas oo loo bedelayo ama la horumarinayo design process. waxaan isticmaalaynaa xirfadeena iyadoo lagu lamaaniyo layout, color, typography iyo tools hal abuur leh si aan uga dhigno fikirka wax jira oo muuqda. xilli hore taasi waxay ahaan jirtay mid la kaashanayo qalin ama brush iyo warqad oo kaliya. maanta waa intaas oo dhan iyo in ka badan. maanta waxaan haysanaa kaamirooyin, kombiyuutaro iyo printers. tan iyo markii la alifay madbacadaha ama printerska, kuwaas oo awood u leh in uu soo saaro waxyaabihii la design gareeyay. graphic design ayaa loo isticmaalaa in lagu wada xiriiro laguna faafiyo fariimaha caalamka si looga faa'iideysto horumarinta tiknoolajiyadda. maanta waxaa inagu xeeran isgaarsiino badan oo visual communication ah. graphic design maanta waxaa laga isticmaalaa meel walba oo dunida ka mid ah. shaqooyinka qaar ee ka mid ah graphic design waxaa ka mid ah meediyaha in laga shaqeeyo, madbacadaha sida xayeysiisyada, looga sameynto kale, web designka kale, interface designka oo joornaalada iyo packagingka, tviyada, motion graphicska waa waxyaabaha hoos imaanaya shaqooyinka graphic design. haddii aad danaynayso in aad la sii socoto shaqooyinka graphic design,
waxaa hubaal ah in aad ku dambeyn doonto shaqo abuur ka mid ah qaybahaas muddo 10 sano ah. waagii hore nashqadaynta garaafyada ayaa qaabaysay dhaqanka iyada oo loo marayo fanka, fansiyaasadeedka iyo farshaxan ganacsi. maanta graphic design-ka waxa uu leeyahay fursad ganacsi oo weyn. waxay si weyn ugu xiran tahay ganacsiga oo loo isticmaalo in wax lagu iibiyo oo la xayeysiiyo, laakiin intaas kuma koobno. waxaan aaminsanahay in nashqadaynta garaafka ay tahay midnimada labada quwadood iska soo horjeeda ee kala ah theory-ga aad baratay iyo design thinking oo aad ku dabaqday hab practical ah. marka aad awood u yeelatay inaad labadan cilmi si wadajir ah ku wada xiriirisid, marka waxaad abuuri kartaa design cajiib ah. intaani waa hordhaca waxa uu yahay nashqadaynta garaafyada, waxa graphic design la dhaho. waxaan rajaynayaa in wax uu ka caawiyay inta aan soo sharxay. haddii aan dib ku xusuusiyo muuqaalkan, waxaan ku xusay in nashqadaynta garaafyada ama graphic design-ka uu ka samaysan yahay visual elements iyo design principle. casharada 7 qaybood ee soo socda waxaan aad uga hadli doonaa aragtida nashqadaynta oo aan si faahfaahsan uga hadli doono visual elements, kaas oo ka dhigan in qayb ka mid ah graphic design-ka aan ka wada shaqeynay. fiidiyowga soo socda waxaan ka bilaabayaa inaan ka hadlo line-ka ama sadar oo ka mid ah visual element markii la joogo graphic design. waa inoo muuqaalka xiga insha Allah. wixii su'aal ah commentiga noogu reeb. mahadsanidin. isku soo noqod wanaagsan. sida aan ku ballanay waxaan qaadan doonaa line oo ka mid ah visual elementska aan soo xusnay. haddii aan dib ku xusuusiyo, the basic visual elementska waxay kala yihiin line, color, shape, texture, space, form iyo typography. dhammaantood ayaa adeegsan kartaa si aad u soo saarto wax u eg kuwa magazineska, postereska, websiteska ama xayeysiimaha kale loo isticmaalo. visual elementska wuxuu door muhiim ah ka ciyaari doonaa qayb ka mid ah design-ska aad samayn doontid. muuqaalkan waxaan ku falanqeyn doonaa qodobka ugu horeeya ee visual elementska ee ah line. si fudud, line-ka waa qayb muhiim ah markii la joogo design-ska. wuxuu noqon karaa thick, thin, solid ama dashed. yani wuxuu noqon karaa mid oo muuqiisa aad u muuqdo adagii oo kale sida hadda sawirka nooga muuqdo. thin mid caato oo kale noqon karaa, solid oo noqon karaa, ama wuxuu noqon karaa dashed dhibic oo kale. lineska wuxuu qurxinayaa curiskaaga, waxa uuna u yeelayaa qaab dhismeed ilqabad leh si loo arko meelaha muhiimka ah. kuwaan waa tusaalayaal ka mid ah lineska. waxa inoo muuqdo waa dhowr nooc oo ka mid ah lineska. haddii aan isku dayno inaan mid u sharaxno, tusaalaha ugu horeeya lineska ku saabsan waxaa ka muuqda sawirkan dhowr tusaale oo ku saabsan line-ka. haddii aan soo qaadano tusaalaha ugu horeeya, waxa uu ka kooban yahay dhowr line oo la isku geeyay oo u muuqda infographic. waxaa sidoo kale qaybta u hooseysa ka muuqda line kaas oo kala jaraya infographics-ka iyo qoraalka u dambeeya. tusaalaha xiga waxaa ka arki karnaa lines dhex yaala qoraalada oo kala qaybiyay isagoo caate ah textiga hadda noo muuqdo kale. tusaalaha xiga waxaa ka arki karnaa in hab border ahaan ama fargeys loo isticmaalay. waxa uuna kala yahay laba line oo mid yahay thin mid kalena yahay thick. waxaa kale oo dhexda ku jira line kala qaybinaya qoraalada sida noo muuqda dirtaan. mid fargeyska thin iyo thick markaa leenahay, mid waa midka madow qadiisa badan tahay, waa midka thick ah. thin waxaa midka qadiisa yar tahay oo fargeyska frame-ka camal ah oo caataha ah. tusaalaha xiga waxaa loo isticmaalay qaab structure ahaan. waxaa haysanaa line ballaaran oo lagu dul qoray jabtarada nambaradooda, waxaana kala jaraya line kale oo yar. numberska hadda line-kan qaybta bidixda nooga muuqdo oo madowga waa line weyn. qaybtan oo horizontal ahaan lineska usoo galayna waa line yaryar. marka qaabka waxaa loo isticmaali karaa jabtariska markii la qoraayo kale. tusaalahan kale waxaa ka arki karnaa waxaa isticmaalna qaab structure ahaan lineska 4 gees oo u samaysan, waana habka frame-ka. waxaa ka arki kartaa farta qaabka qurxan oo u yaalo. sidoo kale midka qoraalka dhanka bidixda ka yaalo waxaa arkaysaa inuu hab nidaamsan u yaalo isagoo qayb ka qaadanayo quruxda. tusaalaha xiga waa tusaale la isugu keenay dhammaan
layniska asagoo wax qeybinayo. qaybta sare waxaad ka arki kartaa laynis lagu kala soocay xogta ku qoran meesha. layniska wuxuu noqon karaa stroke. waxaan haysanaa sawir weyn oo meesha noogu jira. qaybta hoose waxaa uga jeednaa laynis isku tagay oo jaarti laga soo saaray, kaas oo gudbinaya xog. qaybta hoose oo kale si fiican u fiiri. tusaalaha xiga waxaa ka arki karnaa in layniska aad isticmaali kartid qurxin ama texture oo kale. waxaa jira qaabab badan oo loo isticmaali karo layniska. kuwa aad soo aragtay waa tusaale iska yar. si gaar ah u hubi markaad isticmaalayso layniska si wax qurux badan ay kugu soo baxaan. halkaas waxaa ku dhammaynay qodobka ugu horeeya ee visual elementska ee ah line. cashirkeena xiga waxaan kaga hadli doonaa color waxa la dhaho oo ah qodobkeena xiga marka la joogo visual elementska. insha Allah waa inuu cashirka xiga. mahadsanidin. muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa qodobka labaad ee visual elementska, kaas oo ah color. midabka waxa uu ka ciyaaraa door muhiim ah markii la joogo nashqadeynta iyo nolosha caadiga ahba. waxaad ku kala socdaa sawirada. waxaa lagu muujiyaa dareenka markii la sawirayo. emojiska xitaa mararka qaar waxaa loo isticmaalaa arrin muhiim ah oo bulshada ka wada dhexeeyo iyadoo wax erayo ah aan lagu dhawaaqin, sida samaafaraha oo kale. haddaba sidee ku kala garan kartaa midabka habboon in la isticmaalo iyo midabka aanan habbooneyn? jawaabtu way fududahay. aan gudaha u galno basicska uu leeyahay colorska ama midabada. colorka wuxuu ka farcamaa RGB, red, green iyo blue. waxaa dhihi karnaa midabada waxay noqdaan 3 group oo kala ah primary, secondary iyo tertiary. haddii aan dhammaan isku qasno ama isku darno waxaa inoo soo baxayo color wheel wax loo yaqaano. waxaa la yiraahdaa color wheelka waxa uu ka kooban yahay 12 midab oo ka yimid RGB. aan isla fiirino color.adap.com oo ah website-ka ugu weyn ee colorska laga isticmaalo. gadaal ayaan ka sharxi doonaa sida loo isticmaalo. wheelska waxa uu ka kooban yahay 3 qayb oo kala ah primary, secondary iyo tertiary sida hore u soo sheegnay. mid haddaan u falanqeyno aan ka bilaawno primary color. waa qaybta asaasiga ah ee color wheelka, waxayna kala yihiin blue, red iyo yellow. secondary color waxa uu ka yimid primary color oo la isku daray. waxa uuna noqonayaa green, orange iyo purple. tertiary color waxa uu ka yimid primary oo lagu daray secondary color. tusaale ahaan haddii aan isku qasno ama isku darno yellow iyo orange waxaa inoo soo baxayo yellow iyo orange wax u dhexeeya. haddii aan sidaa kusii wadno midba midka kale wax isku dhow ayaa soo baxaya. waxaa jira 4 qualities uu leeyahay color kastaba, waxayna kala yihiin hue, saturation, value iyo temperature. hue waxaa dhihi karnaa waa colorka aanan waxba ku milmin ee keligii u taagan, yacni color keligii ah. saturation waxaa sidoo kale loo yaqaanaa intensity ama chroma. waxa uuna sheegaa midabka sida ay isugu milmaan. waxaana kasii farcami kara desaturated color oo ah midabkaas inoo muuqda, iyo saturated oo ah midab adag oo aan wax milan ah ku jirin. value waxa uu inoo sheegayaa hadba sida uu yahay colorka, dark ama light. waxaa ka dhex abuuri karnaa shade iyada oo aan ku dareyno black sida midabkaas kore oo kale, ama tint ayaa ka samayn karnaa iyada oo aan ku dareyno white. sidoo kale waxaa kasii samayn karnaa tone inagoo ku dareyno midab gray ah. ugu dambeyn aan u gudubno temperature. color wheelka waxaa loo kala jibiyaa ama loo kala jibin karaa 2 qayb oo waaweyn oo kala ah warm iyo cool color. color wheelka waxa uu ka caawinayaa inaad colorska qurxan aad dooran karto. sidoo kale waxaa jiro color rules, yacni shuruuc loo isticmaalo haddii aad fahanto ka caawinayo inaad isticmaasho midabo macquul ah oo isqaadan kara. color ruleska waxay kala yihiin monochromatic color, analog color, complementary color, split color, triadic color. monochromatic color waxaa dhihi karnaa waa color aan wax milan ah ku jirin.
waxaad ku sii darsan kartaa saturation and value aan horey u soo aragnay si wax qurxan ay kugu soo baxaan. Analog color waa 3 midab oo isku dhow markaan ka eegno wheel colorska oo ah kuwa si wanaagsan iskula shaqeynaya. Isku day inaad isticmaasho midabo ku qaas ah oo aad ka soo saarto. Complementary color waa midabo iska soo horjeeda oo si wanaagsan isku qaadan kara oo wada shaqeeya. Tusaale ahaan ila arag blue iyo orange ama red iyo green si looga fogaado complementary color inuu noqdo mid shaacsan oo la wada yaqaan. waxaad isticmaali kartaa bright ama saturated color. Split complementary colors waxa uu isticmaalayaa 3 color ama midab oo la isku daray sida nooga muuqda shuruucdaas ayaana ugu dhex adeegsanaynaa markaad joogno wheelska. Triadic color waa 3 angle oo isla eg markii la joogo color wheelka waxaana soo baxay midabo cajiib ah oo isqaadan kara. waxaa haboon marka colorska aan isticmaalayno inaad ruleska u fiiriso si wax xeerka waafaqsan ay kugu soo baxaan. waxaa jira midabo la isticmaali karo oo isqaadan kara iyo kuwa aanan la isugu talagelin in la isla isticmaalo. waxaa haboon markaad adeegsanayso colorska inaad ka fikirto aqriska ama muuqaalka siduu noqon lahaa. marka midabo aan la isla isticmaalin aad qaadato dhibaato badan ka imaanayso. bal ila arag tusaalahan. haddana midkaan ila fiiri. dabcankii hore wuxuu ahaa mid indhaha dhibsanayo ama qofka indhihiisa aan u wanaagsaneyn aqrintiisa marka uu wax aqrinayo. halka midkaan uu yahay mid isqaadan kara oo indhaha kugu qaboobayaan marka aqrinayso ama u bogaysid. color kastaba ama midab kasta waxa uu sidaa fariin. bal tusaalahan ila eeg. waxaa la yiraahdaa midab kastaba qolo gaar ah ayaa isticmaashay, yani wax gaar ah loo isticmaalaa. inkastoo midabada qaar la isla adeegsado, waxaan rajeynayaa inaad wax uun ka faa'iiday. ku dadaal inaad tijaabooyin badan sameyso si midabada ama colorska aad u fahanto. xaggan waxaa inoogu eg qodobka labaad ee visual elementska. waa inoo muuqaalka xiga oo aan ugu hadli doono shapeska oo ah midka saddexaad ee visual elementska. muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa qodobka saddexaad ee visual elements oo ah shapes. wax kastaba oo aad aragtaa markaad joogto designinka waa shape. designinka marka la joogo shapeska waxa uu leeyahay 2 dimension oo lagu cabiro waana height iyo width. shapeska waxa lagu qeexi karaa xuduudo leh lines iyo colors. sidoo kale waxa lagu sameyn karaa negative space. shapeska waxaad u isticmaali kartaa inaad ku qurxiso ama decorate ku sameyso. waxa uu noqon karaa calaamad. sidoo kale waxa kale oo aad u isticmaali kartaa pattern ama texture. waxaa jira 2 nooc oo shapes ah, geometric shape iyo organic shape. geometric shape hada ku hormarno waxaa dhihi karnaa waa shapes lagu sawiray lines ama si caadi ah loo sawiray iyadoo la raacayo tilmaam ama jihay. ha ahaado mid fudud ama mid adag, waxa u isticmaali kartaa inaad controlsho oo aad waxa aad rabto ka bedesho. organic shape waa shape gacanta lagu sawiray ama waa nature oo laga tusaale qaatay. hal mid maskaxda ku haay. shapeska marka la joogo hal xabo ayuu ka yahay visual elementska. marka waxaan nashqadeynayno shapeska waxa ka dhaxayn doona xiriir, ha ahaado mid fudud ama mid adag. xiriirkaas waxa uu soo bandhigaa dareen iyo message uu gudbinayo. sidoo kale dadka arki lahaa ayuu soo jeedinayaa aragtidooda ama qayb muhiim ah. haddii aad rabto inuu muuqdo ayaad ku muujin kartaa. marka aan group gareyno ama group ah ka dhigno shapeska ama aan rabno inaan kala dhaqaajino ama kala fogeyno qayb ka mid ah waa inaan u fiirsanaa shuruucda design principle-ka ee proximity. mar kale ayaa taxana ahaan ooga hadli doonaa design principle in proximity. laakiin hadda waxaa muhiim ah inaad maskaxda ku sii hayso in proximity-ga uu yahay ama uu door muhiim ah ka ciyaaro designka markaad isticmaalayso shapeska. marka la joogo wax design gareynta, geometric iyo organic shape waa la isku geyn karaa. habab badan ayaana la iskugu geyn karaa si loo abuuro design kala duwan. example-kan ila arag. shapeska waxaa loo isticmaalaa sidiisa nadiifka ah oo aan wax buuq lahayn. tusaalayaashan logooyinka casriga ah ee loo isticmaalo lana fiirino. halkan waxaan ku haysanaa logooyin isku qasan. qaar waa organic,
qaar waa geometric qaar kalena waa mixed waa la isku daray. waxa u jeednaa qaar kale oo solid shapes iyo qaar kale oo la isku geeyay kadib waa la isku sii dhaweeyay. maskaxda ku hay proximity inuu qayb muhiim ah ka ciyaaro markii loo eego shapeska la isku geeyay. tusaale muuqaalkan ileeg waxa arki karnaa geometric iyo organic la isku geeyay wuxuu noqon karaa typograph. hal xaraf ee r ayaa noqon kara isu geynta geometric iyo organic kaas oo aan ku dhisayno shapes weyn si aan u soo saarno wax micno leh. marka isku geyno dhowr xarafna waxa soo baxaya jumlad micno sameynayso. shapes kale isku geeyay ee micnaha sameynaya markii loo eego typograph iyadoo kaga micno iyo aragti wanaagsan. tusaalahan inoo muuqdo waxa ka arki karnaa shapeska qoraal ahaan loo isticmaalay. tusaalayaal kale waxa ku arki karnaa sida loogu isticmaalo shapeska markii la joogo design-ka. tusaalahan koowaad waxaan ku arki karnaa in laba shape wax u muuqdo ay ku jiraan. mid waa text badan oo laga sameeyay half shape, midka xigana waa shape solid ah oo half shape ah, yani shape halfkiis. tusaalahan xiga aan isla eegno waxa inoo muuqdo shapes la isku geeyay oo laga dhigay number 3. waxa uu u muuqdaa in loo isticmaalo hab decoration camal ah, qurxin oo kale. haddii la kala qaadana sidaan ayuu u muuqanayaa. tusaalahan xiga waxa ku arki karnaa qaabka loo isticmaalo shapeska. waxaa dhihi karnaa shapes badan oo la isku geeyay waaye kadibna laga soo saaray textures. tusaalaha xiga shapeska waxaa loo isticmaalay pattern ahaan oo yani background ama laga dhigay patternka inta badan waa aragteen. waxa uu u egyahay texture balse waa pattern, yani qaarkooda pattern ah. shapeska waa asaaska wax kasta oo la isku geynayo. layoutkana waxa uu noqon karaa mid fudud oo ka samaysan hal ama xoogaa shapes ama qaybo adag oo groups ah. markii la joogo design-ka shapeska waxaa loo isticmaalaa habab badan. waxay ku xiran tahay habka la iskugu arrange gareynayo ama la iskugu habeynayo si loo gudbiyo fariin. markii la sameynayo composition ama isu geyn markii la sameynayo had iyo jeer waxaa waajib ah inaad text geliso visual elementska aad ka sameynayso shapeska. intaas waxaa noogu eg qaybta saddexaad ee visual elementska. waa inoo cashirka xiga insha Allah. mahadsanidin. waxaa qaadanaynaa qodobka 4 ee visual elements ee ah texture. texture waxaa loo isticmaalaa in looga dhigo design-kaaga mid soo jiidasho leh oo qurxan. design-ka markii la joogo waxaa jira laba qayb oo texture ah ama types of texture. waxaa dhihi karnaa image texture iyo pattern texture. image texture waxaa laga sameeyaa isku darka organic, geometric shape iyo color. waxa uuna noqon karaa mid fudud ama mid adag oo u muuqdo mid qurxan. image texture waxa uu noqon karaa environmental, biological iyo man-made. saddexdaas uu qaybsami karaa. tusaalayaal dhowr ah aan aragno. tusaalayaashan isku dhafan waa dhowr xabo isku kala duwan oo isku geeyay. haddii mid ah u kala qaadno environmental texture waxa uu noqon karaa sawirka noo muuqdo 4 sawir oo kale. waa mid daruuraha kale, mid wuxuu ka turjumayaa meel qalashay oo kale, mid yani meel bacaad ah, wax noocaas oo kale. marka environmental aan dhihi karnaa. biological texture wuxuu noqon karaa yani dhogorta, yani xayawaanka oo kale, jirkiisa oo kale sida hadda dameer farowga oo kale, shabeelka oo kale midabkiisa oo kale, geed caleen oo kale, wax noocaas oo kale. marka waxaan dhihi karnaa biological texture qaab noocaas oo kale noqon karaa. man-made texture wuxuu noqon karaa sida hadda noo muuqato kale wax yani dadka ay sameeyeen waayo oo qofka caadi u sameeyay shapes iyo wax noocaas isku keenay ama colors isku dardaray. hadda meeshan oo kale wax noo muuqda anaga shapes kan geeska marka laga bilaabo shapes la isku geeyay. waxa noogu xigo kale shapes kale oo asne madow iyo cadaan oo color leh. sawir caadi oo il ah iyo yani shapes oo meel yar oo aad u kala fog in isku keenay iyo sawir caadi oo kale. marka texture ka qaab kala duwan loo sameeyo. marka kan waxaan dhihi karnaa
man made يعني waxa dadka ay sameeyeen waay. Pattern texture waxa uu ka imaan karaa geometric ama organic shape iyo color ayuu ka imaan karaa pattern texture. Pattern texture waa la qaabeeyaa waxa uu noqon karaa mid fudud ama mid adag, laakiin image texture waxa uu u muuqdaa mid random ah halka pattern texture uu yahay mid la qaabeeyay. tusaalayaal badan ayaa ka arki kartaa sawirkan oo kale ila fiiraan mar dhowr xabo la isku keeno. haddii la isku daro shapeska iyo colorska kadib la soo celceliyo wuxuu soo saarayaa texture. sidoo kale haddii la soo celceliyo loogada waxa uu sameeyaa pattern texture. pattern texture waxa uu kiciyaa dareemaha qofka marka ugu horeysa ee uu arko qofka soo jeedkiisa kama jeesanayo designka oo يعني pattern texture lagu sameeyo qofka markii uu arko isla markii kama jeesanayo dareenkiisu kicina. marka tusaale fudud logo ayaa mararka qaar laga sameeyaa pattern waxa ayna suuragelisaa marka la isticmaalo in la soo xasuusto logadaas. tusaale kale ayaa ah gift wrapper. inta badan waxaa aragnaa hadiyadaha ayadoo ka samaysan pattern. marka dadka inta badan waxay isweydiinayaan maxaa lacag badan iyo qarash loogu bixiyaa patternkaas oo hadiyadaha lagu xardho ama lagu qurxiyo. maxayse kaga duwantaa. marka waxaa leeyahay patternka wuxuu soo jiitaa indhaha dadka ama dareenka. haddii hadiyada meel la dhigo oo faaruq xataa waxay sameynaysaa in meesha ay taalo ay sii qurxiso. intii laga furaayo meeshaas iska sii taalo indhaha qofka markuu meesha maraayo ama uu arko isla markii ay dhiisa soo jiidanayso. waxaa jiro texture la isticmaali jiray waagi hore sida sawiradan ka muuqdo muuqaalkeena. waxaa fiican in designkaaga aadan u isticmaalin waxyaabo old waqti hore la isticmaali jiray. marka texture-ka ama pattern-ka inta badan update lagu sameeyaa. marka horeyna waa soo sharxnay qaybaha kala noqonayaan qaababka u kala baxayaan. marka wax kastaba waxa arki doonaa insha Allah practicada iyo marka gaarno waxa gacanta marka laga qabanayo. hadda marka waxa ugu muhiimsan waxa qofka inuu fahmo wax kastaba waxa ay ka yimaadeen iyo basic wax kasta waxay leeyihiin rules. marka rules in la isla fahmo aad iyo aad muhiim ah. qofka waxa fiican waxa uu sameeyaa micnahooda waxa uu sameeyaa sababta inuu isweydiiyo. marka cashirkeena intaanu nagu egyahay aad iyo aad u mahadsantihiin. isku soo noqod wanaagsan. muuqaalkan waxaa uga hadlaynaa qodobka shanaad ee visual elements oo ah space. spaceka waxa uu abuuraa wax nuxur leh oo qurxan. spaceka waxaa loo qaybiyaa laba qayb. types of space waxaa dhihi karnaa positive space iyo negative space. positive space waxa uu noqon karaa mid 2 dimension leh ama 3 dimension leh. positive space waxaa lagu qeexaa shape ama object kaasoo loo tixgelinayo inuu muujiyo focuska wax diiradda inuu muujiyo. negative space waa qayb banaan oo designka ka mid ah sida midkan hadda inoo muuqdo. waxa uu inoo soo saaray backgroundka dambe ee inoo muuqdo ee cagaaran. marka qaybtaas waxaa leenahay negative space. boxkan madowga oo afargeeska qaybta yarta ee cagaaran ee ku dhex jirto waxaa leenahay negative space. negative space waa qayb midaysan oo kaaga dhex muuqda designka sida positive space. negative space waa muhiim oo wuxuu ka caawinayaa frameka waxa uuna ku jiraa composition. negative space wuxuu isku xiraa ama kala gooyaa shapeska si loo muujiyo xiriirka ka dhexeeya shapeska. negative space waxa uu ka fogeynayaa ama designka ka ilaalinayaa wax buuqsan ama wax isku yaacsan. waxa uuna sameeyaa wax symbol ah oo fudud kaas oo ka caawinaya compositionka in uu balance noqdo. sidoo kalena focuska uusan lumin diiradda inaysan lumin ayuu ka caawinaya. positive iyo negative space waxa sameeyo waa sida la isugu arrange gareeyo ama qaabka la isugu hagaajiyo kaasoo u muuqanayo shapeska ugu dambeyn. waxyaabaha saameeya shapeska si loo soo saaro wax dynamic ah waxyaabahaas waxaa ka mid ah proximity, overlap, opacity, light and shadow iyo perspective.
haddaan isku dayno inaan mid mid u aragno waxaan ku hormaraynaa proximity wax la yiraahdo. Proximity si fudud waxaa dhihi karnaa waa space u dhexeeya shaybiska midba midka kale, ama ha ka fogaada ama ha u dhawaado. sida noo muuqato muuqaalkan si fiican u fiiri. Overlap waxaa dhihi karnaa waa markii shaybiska la isdul saaro kadib effectiga ka soo baxa ayaa leenahay waa overlap. Opacity waa markii objectiga lagu sameeyo transparent, yani wax in laga dhex arko. Transparent marka leenahay waxa waaye wax qaybta dambe in wax laga dhex arki karo. Opacityga oo la yareeyo transparency-giisa waxay sababaysaa in uu light noqdo. marka opacityga la yareeyo transparency-ga yani aragtida qaybta dambe in la arko waxay noqonaysaa yani mid light ah oo xogaa yani qafiif ah inay noqoto. Opacityga wuxuu qarinayaa negative iyo positive space-ka. markii overlap lagu sameeyana wuxuu ka dhigayaa mid dynamic ah. Light and shadow wuxuu objectiga ka dhigaa mid saddex muuqaal leh. waxaas ka eegi kartaa sawirka in hor yaalo. Shadow waxaa lagu sameeyay shape kore ee light-ka ah, yani shadowga hadda meesha waxaa noo yaalo laba shape, mid madow yahay iyo mid cadeys yahay. marka midka kore waxaa lagu sameeyay shadow effect leh. marka meesha waxaa nooga soo baxaya light and shadow oo effect leh. Perspective yani waxaa dhihi karnaa waa arrangementiga ama isku hagaajinta iyo objectiska iyagoo milan ah si ay ugu muuqdaan wax real life ah. Perspective waxa uu noqon karaa mid overlap ah isagoo isu dhow si uu u muuqdo. markii la joogo design-ka ma jirto wado go'aaminaysa in laga dhigo mid qoto dheer shaybiska, balse waxaa loo baahan yahay in ay isu dhawaadaan oo ay noqdaan negative ama positive space si loo sameeyo focal point, balance iyo mid aad u muuqdo oo clear ah. halkan waxaa inoogu eg qodobka shanaad ee visual element ee ah space. waa inoo muuqaalka xiga insha Allah. muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa qodobka lixaad ee visual elements ee ah form. formka waxaa lagu qeexaa inuu yahay 3D shape oo isla eg. formiska wuxuu leeyahay 3 dimension oo kala ah height, width iyo depth. formiska waxay noqon karaan kuwa structured ah. formiska waxaa lagu qeexi karaa inuu yahay hab dhismeed har leh ama hoos leh oo u muuqda 3D. waxa uuna lahaan karaa ama noqon karaa texture ama mid color leh. formka waxaa loo isticmaali karaa in nashqada lagu qurxiyo si uu u noqdo wax cajiib ah. design-ka markaa joogno waxaa jira laba nooc oo design ah, geometric iyo organic oo horey in badan aan soo aragnay. Geometric wuxuu u muuqdaa mid dadka uu sameeyay, ha ahaado mid fudud ama mid adag. midan waxa ay soo saaraysaa wax la controli karo oo dareen leh. Organic form ha ahaado mid fudud ama mid adag waxa uu soo saaraa dareen natural ah. waxaa ka arki kartaa tusaalayaashan in hor yaala. organic inay yihiin oo natural yihiin si aad iyo aad loo fahmi karaa. halka waxaa inoo eg qodobka lixaad ee visual elements. waa inoo cashirka xiga insha Allah. muuqaalkan waxaa kaga hadli doonaa qodobka 7 ee visual elements oo ah typograph. typograph waa waxa ugu badan ee design-ka marka la joogo la isticmaalo. in wax la qoro waa waxa kaliya ee xiriirka sameyn kara ee la arki kara marka la joogo design-ka. wax qorista laba mid ayay noqon kartaa oo kala ah header oo ciwaan ah ama paragraph oo curis ah, yani qoraal isku xiran. xarafka R ee inoo muuqda wuxuu ka yimid organic iyo geometric shape. organic iyo geometric shape muuqaaladii hore ayaa in badan soo sharaxnay. dib ugu laaban kartaa haddii uu kugu cusub yahay. characteristics-ka uu leeyahay qoraalka waxaa loo kala qaadaa wax loo yaqaan anatomy of type. type of shapes ama shape-ka farta waxa uu ina siinayaa anatomy of type, kaas oo xaraf kasta siinaya muuqasho iyo cabir gooni ah.
typeface ma ahan wordiska lagu xiriiro. wordiska waa muhiim laakiin uma aha sida styleka wordka u yaalaan ama u muuqdaan. typeface waxa uu leeyahay family iyo thick ama dhumuc kala duwan kaas oo lagu muujinayo qoraalkaas si loo muujiyo kala sarreynsiinta. tusaalaha in horyaalo ila eg typeface waa sida luqadda qofka uu ku hadlo oo leh sheeko la curiyo iyo qaab hadal kaliya looma isticmaalo in lagu wada xiriiro bal waxayba qayb ka tahay in ay fariin gudbiso. marka aad dooranayso far aad rabto inaad u isticmaasho design-ka waa muhiim inaad il gaar ah ku fiiriso si ay u noqoto mid ilqabad leh oo aad isu sharaxda macnaha ayada nafteeda yani farta inay is sharxi kartaa loo baahan yahay. waayga hore typeface waxay qaadan jirtay waqti badan in la sameeyo. typeface ugu horeeyay waxaa loo isticmaalay alwaax oo la jarjaray kadibna loo isticmaali jiray hab printing ah yani in wax lagu qoro ama wax lagu daawaco kale. waa sida hadeertaan la sameeyo fanaanadaha ciyaalka xaafadaha oo sportiska dheelo kale markay rabaan inay magacyada ama numberska oo kale gadaal inay ku buufiyaan. waxaan naqaanaa inay sameeyaan cartoonis oo la jarjaray kadibna xarfaha laga soo dhex saaray kadibna fanaanada lagu buufiyo. marka waxaas leeyahay jiilkan hadda jiro yani inaysan soo gaarin u badan tahay laakiin jiilkii hore oo jiray 2000 iyo 5 6 7 10 meelahaas waxaas dhigi karaa way fahmi karaan. maanta waxaa jiro typefaces kala duwan markii dib loo eego taariikhda hore. kuwo kalena waxay soo mareen designs kala gedisan balse waxay ka mideysnaayeen inay ahaayeen kuwa gudbinaya wax la fahmi karo oo muuqda. maanta waxaa jiro typefaces kala duwan markii dib loo eego taariikhda design-ka. waxaa jiro fonts kala duwan sida sans serif, serif, slab serif, round, script, black letter, decorative iyo abstract. mid kastaba magaciisa iyo qaabka ay u eg tahay farta way iska dul qoran yihiin oo waxaa ka arki kartaa muuqaalkan in horyaal yani sans serif oo kale markaad u tagtid waa xaraf yani r marka mid kasta waxa laga soo qaatay xarafka r qaabka uu dhigi karo. r-ta u horeyso iyo r-ta u dambeyso qaabkooda isma laha xitaa waxaa arki karnaa r-ta koowaad iyo r-ta labaad isma laha sababtoo ah mid waxay leedahay meel ay ku istaagi karto midna ma laha. marka dhammaan sidaasay u kala duwan yihiin pointska. sawirkan inoo muuqdo waxa uu isugu jiraa functional iyo decorative ama qurxin qayb loo isticmaalo. tusaalaha ugu horeeya hadda soo qaadano dhammaantood sawirada inoo muuqdo waa functional waxayna gudbinayaan message clear ah. tusaalaha hadda soo qaadano waa mid basicska ah isticmaalo oo fariimaha iskula wadaagno waxayna ku jiraan hal block yani hal qayb ay ku jiraan iyadoo loo isticmaalayo serif font yani farta serif al isticmaalayo. labadan tusaale isgarab yaala way ka duwan yihiin kii hore waxaana laga dhigay kuwa dynamic ah. waxay ka samaysan yihiin composition adag waxaana la isticmaalay paragrafyada qaar xaraf weyn oo ka bilowda. midka xiga ee midigta waxaa la isticmaalay header iyo subheader si loo sameeyo contrast iyo hierarchy ama kala sareysiin. sidoo kale waxaa la isticmaalay lines oo lagu hagaajinayo qaab dhismeed headerska iyo subheader. tusaalaha xiga waa mid simple ah. waxaa la isticmaalay far waaweyn oo la wada arki karo oo clean ah. sidoo kale qoraalka ka hooseeya waxaa loo isticmaalay yani qaab angle ah oo unique ah yani xagal unique ah la isticmaalay. tusaalaha xiga waa mid simple ah oo bold ah yani waxaa isticmaalnay far waaweyn oo title leh qaybta kore oo kale iyo qaybta ka hooseyso. marka hore indhaha waxaa soo qabanayo qaybtan farta madow ee ku qoran tahay style guides. marka markasto fontiga adiga yani xukumi karo qofka indhihiisa meesha aad rabtid fastiga inuu arko. tusaalaha xiga waxaa haysanaa serif font waa farta geesaha leh sida midan oo kale noo muuqato. waxaa ka kala dhignay kuwa thick oo dhumuc leh iyo kuwa thin aan dhumuc lahayn oo yaryar.
waxaan u isticmaalnay layout la xiiseenayo oo kale. tusaalaha kale creative use, yani qaab hal abuur lahaa loo sameeyo tokadan. haddaan isla aragno tusaalayaashan dhammaantood waxaa loo isticmaalay form, laakiin siday u kala horeeyaan ayay u kala hal abuursan yihiin macnaha, yani creative aa laga dhigay. midka ugu horeeya hadda soo qaadano, markaad si fiican u fiiriso wuxuu kula ekaanayaa weji dad, macnaha weji qof uu kula ekaanaya. typeface-ka kaliya lama isticmaalin ama far kaliya lama isticmaalin, ee waxaa ka dhex arki karnaa shape, form iyo texture in lagu dhex daray. tusaalaha xiga waxaa ku arki karnaa 3D, waxaa isku darnay form, shadow, perspective iyo depth, hana ka ilaabin dimension. tusaalaha xiga waxa uu inoo muuqda design art iyo quruxda geometric shape. fariintaas waxaa gudbinayo typeface-ka, yani farta. tusaalaha xiga, tusaalahan waxaa arki karnaa in hab texture iyo shape oo kale in loo sameeyay qoraalka. tusaalaha xiga waxaa arki karnaa qoraalka isku dhex yaacsan oo aan la akhrin karin. marka uu sidan oo kale noqdo waxa uu isku bedelaa texture. design-ka markii la joogo, hab qoraalka waxaa loo isticmaali karaa in lagu xiriiri karo ama lagu gudbiyo fariin. haddii aad nala socotay muuqaaladeena hore, waxaan ku soo sheegnay in graphic design-ka uu ka kooban yahay 2 qayb oo kala ah visual elements iyo design principle. 7 cashir aan soo dhaafnay waxaan kaga hadalnay visual elements iyo qaybihiis. 8 muuqaal ee soo socdo waxaan uga hadli doonaa design principle iyo qaybaha uu leeyahay. mahadsanidin. duruustii hore waxaa ku soo qaadanay visual elements inta uu ka kooban yahay iyo mid kastaba tusaalihiisa. muuqaalada soo socdo iyo midkaanba waxaan kaga hadli doonaa key principle of graphic design. waxa ayna kala yihiin contrast, hierarchy, alignment, balance, proximity, repetition, simplicity iyo function. haddaad nashqadeynayso poster, magazine, newspaper, website ama xayeysiin, intaba kama maarantid inaad isticmaasho design principles. muuqaalkan waxaa uga hadlaynaa qodobka koowaad ee design principles ee ah contrast. contrast waa markii 1 iyo 2 wax ka badan oo elements ah ama composition ah ay kala duwan yihiin. design-ka markaa joogno waxaa isticmaalaynaa contrast oo aan ugu talagalnay inaan ugu yeelno design-keena mid qurxan. tusaalahan ila arag, markaa fiiriso isaga ayaa isku ka sharxayo. waxa uuna ku leeyahay waxaan ahay shape circle ah, yani uma baahnid wax kale sharxaad ah. waxaa leenahay contrast. tusaalahan kale waxaa ka arki karnaa shape yar, kaas oo ka yar midkii hore kana fog midkaas, ayaa leenahay waa contrast. tusaalahan kale ila eg, markaa waxaan haysanaa circle oo la eg kii koowaad ee yaalay, laakiin mid madow sidoo kalena kasii madow kii hore ayaa meesha noo yaal. contrast line design-kaaga waa waxba kama jiraan ama wax badan oo buuran ma muujinayo, sababtoo ah indhaheena ayaa soo jiidasho u yihiin. sawirkan bal ila eg waa dhowr tusaale oo contrast ah. tusaalaha koowaad waa contrast iyo shape. waxaa haysanaa 2 shape oo isku cabir ah balse ku kala duwan gidaarada ama geesaha. mid waa smooth oo yacni wax odxo ma lahan, midna wuxuu leeyahay midpoint ama odxo geeso wuxuu ka leeyahay qaab qodax oo kale. haddaba su-aashu waxay tahay, midkee indhahaaga horqabteen 2 shape? waxaa dhihi karaa shape-ka qodaxaha ay qabteen, waana jawaabta saxda ah. sababtoo ay indhahaaga fasting markaa fiiriso waxay indhahaaga horqabanayaan shape-kan geesaha ku leh odxaha ama qodaxa. contrast ayadoo loo fiirinayo markaan color. tusaalahan waa contrast ku kala duwan colorka iyo shapeska. sidoo kale waxaa haysanaa mixture shape, kaasoo u muuqanayo mid kala gidisan ama kala duwan colorka. haddaba waxaa sameynaynaa contrast oo color ah.
marka hore yani marka saan u fiirisid isla markii waxa kugu soo dhacayo midka madow oo dhaxda ku jiro circle-ka isla markii indhaha kaasi qabanayaan kadib qaybtan ku sii xigta ee diilmaha leh kadib yani qaabka u samaysan yahay kadib geesaha kale u sii gudbaysaa aragtidaada macnaha markaas la soo jiidaya marka aragtidaada marka koowaadba isla markii waxay qabatay qaybta dhexe marka waxaa dhihi karnaa contrastiga waxaa isticmaalnay color ayadoo contrast oo color ah labadan tusaale xigto waxa uu ina tusayaa contrast scale ahaan yani scale qaabka cabirka waxaan haysanaa 8 stroke laakiin ku kala duwan size iyo grid of circles marka circleska qayb ku kala duwan oo marka fiirisid circleskan waxaa arkaysa isla markii midka yariiska shape-ka circle-ka uu gudaha ku jiro qaybta kale oo ayadana stroke waxaa arki karnaa sida jaranjar oo kale midba midka kale uu ku xigo kor hadda ka soo fiirisidna waxaa u fahmaysaa midba midka kale inuu sii milmaayo yani uu sii dhammaanayo kale ilaa ugu dambeyn midka u dambeeyo uu eber noqdo xaweek tusaalahan kale waa contrast loo isticmaalay layout qaybta sare haddaa eegno waxaa ka arki karnaa in laisku hagaajiyey oo qaab layout saxan loo sameeyey qaybta hoosena waxaa ka arki karnaa iyadoo laisku dhex yaaciyey oo si random ah loo daadiyey aana wax layout lahayn marka isla markii waxay arkayaan indhahaaga waxaa habaysan oo diyaarsan isku toosan contrast type yani far ahaan contrastiga markaan loo isticmaalay contrastiga inta badan waxaa loo isticmaalaa hierarchy yani hab kala saraysiina loo isticmaalaa waxaa jira habab oo loo isticmaali karo contrast sida typograph alignment typeface type size color iyo weight hadda waxaana horyaala waraaq yar ay ku qoran tahay qoraal waraaqda markaa fiirisid alignmentigeeda way kala duwan yihiin qaybta sare iyo qaybta hoose farta loo isticmaalay sidoo kale markasta contrastiga waxay ku xiran tahay qaabka adiga ay u kala muhiimsan yahay yani fariinta aad rabtid inaad gudbiso qaabka ay u kala muhiimsan yihiin adaa yaqaan markasta marka waxaa la rabaa contrastiga inaad u isticmaasho tusaalaha xiga contrastiga waxaa loo isticmaalaa qaab color ah yani aragtideena koowaadba waxay arkaysaa qoraal meesha ku daadsan far madow ku qoran iyo qoraalka hoose kadib textiga qaybta dambe ee backgroundka camal ah ee daciifka ah gadaal dambe ka arkayna laakiin marka hore isla markaa waxaa arkaynaa farta madow ee meesha ku daadsan iyo labada sare iyo qaybta hoose oo madowda ah kadib waxaa indhaheena sii arkayaan qaybaha daciifka ah tusaalaha xiga waxaa haysanaa contrastiga oo markaan loo isticmaalay qaab alignment kaasoo ku kala gedisan size-ka ama weight-ka alignmentiga qoraalka inta badan waa madow laakiin qaarkood ayaa ka go'an geesaha kuwa hadda noo muuqdo kale tusaalaha xiga contrastiga waxaa loo isticmaalay color tusaalaha waxaan ka arki karnaa contrast la mid ah kii hore laakiin titleka markaa fiiriso waa dynamic waxaanu uu ku xiriiraa light spaceka iyo dark spaceka yani hadda tusaale meesha xarafka skin ay ku qoran tahay esta markii laga soo tago keyda waxay noqotay qayb dark ah iyo qayb light ah midabkeeda oo cadaan oo kale marka contrastiga markaan color ayadoo ah aad text u sii isticmaalo waxaa dhihi karnaa contrast waa message communication adag waxaa loo isticmaalaa inta badan visual communication yani aragtidaas inaad ku controlsho tusaalaha xiga waxaa ka arki karnaa signs ama calaamadaha oo wadooyinka ama xarumaha caafimaadka ama xarumaha kale inta badan loo isticmaalo waxaa arki karnaa calaamadan in loo isticmaalay lagana dhigay boldy fariimaha la gudbinayo contrastigan waxaa kale oo aan u isticmaalnay color si loo kala saraysiiyo sida ay u kala muhiimsan yihiin yani qaab colora loo isticmaalo hadda mid kasta waxaa ku jiro color tiqi ah oo madow ah calaamadan noo sheegaysa marka hore inay muhiim tahay fallaarta hoose ujeedo yani hadda tusaale qaybtan yarta markaa soo qaadana waxay noo sheegaysaa fallaarta hoose inay muhiim tahay yani calaamadda marka laga soo tago labada fallaarta hoose inay muhiim tahay tusaalaha waxaa ka arki karnaa in sigaarka yahay wax xun maadaama calaamadaas la saaray istilaabka sidoo kalena mamnuuc ay tahay in yani marka meesha ay ku dhigan tahay in lagu cabo qaar ka mid ah logooyinka iconiga ah yani waa kuwo fudud kuwaasoo ku gudbinayo fariin si loo xasuusto yani simple waaye fariinayna gudbinayaan uma baahna qofka in loo sharxo waxaa halkan ku dhammaynay qodobka koowaad ee design principle oo ah contrast
waa inoo muuqaalka xiga iyo qodobka labaad ee design principle. mahadsanidin. muuqaalkan waxaan ku arki doonaa qodobka labaad ee principle of design ee ah hierarchy. hierarchy waxaa dhihi karnaa waa controlka informationka muuqda in la isku hagaajiyo ama la habeeyo si loo ablaagareeyo sida ay u kala sareeyaan oo u kala muhiimsan yihiin. hierarchy si kooban waxaa dhihi karnaa waa kala saraysiin in la sameeyo designka markaad joogta. hierarchy wuxuu hagaa designka sida ay u arkaan dadka. hierarchy waxaan u isticmaali karnaa habka ay u muuqanayaan waxa aan rabno sida ay u kala muhiimsan yihiin iyo midka aan rabno inuu noqdo midka koowaad, sidoo kale midkaan rabno midka labaad inuu noqdo oo la arko, iyo sidaas si lamid kuwa kalena sidaas kusii wadi kartaa. markii la sameynayo hierarchy la wada arki karo waa muhiim in la iska eego sababta oo ah waxaa la isku hayaa designka dhammaantiisa si waxtar leh. haddii loo isticmaalo waxa uu noqdaa mid wanaagsan, haba ahaado mid fariin adag. markii la joogo designka, hierarchy waa wax clear ah oo maskaxda dadka horay ka degaya. waxaa loo muujin karaa habab badan oo ka mid ah scale, color, contrast, space, alignment, shape iyo form. sawirkan noo muuqdo wuxuu noo sheegayaa tusaalayaal badan oo aan arki doono. tusaalaha koowaad haddaan aragno waa hierarchy oo scale. waxaa haysanaa lines kaas oo ka bilaabanayo thick ama qayb oo dhumucdeeda weyn tahay ilaa iyo qaybta u hooseysa oo thin ah dhumucdeeda yar tahay. marka waxaa dhihi karnaa kala saraysiintan waxay ka bilaabanaysaa qaybta kore ilaa iyo ay ku tagto qaybta hoose. hierarchyan waxaa u isticmaalnay thick iyo thin anagoo isticmaaleen qaab scale ah. marka scale waxaa dhihi karnaa yani waxa in cabir ahaan loo isticmaalo, la weyneeyo ama la yareeyo. tusaalaha xiga waa kii hore oo scaleka u isticmaalnay, laakiin waxaa markaan isticmaalaynaa hab color ah u isticmaalaynaa. marka hab color markaa u isticmaalayno wuxuu ka bilaabanayaa qaybta hoose ee thinka, sababtoo ah colorka wuxuu ka bilaabanayaa asagoo dhaag ah qaybta hoose, yani asagoo tiq ah wuxuu ka bilaabanaya qaybta hoose ilaa iyo qaybta kore si loo tago. marka hierarchyan waxaa u isticmaalnay color. colorka markaa isticmaalana wuxuu ka bilowday qaybta hoose ilaa iyo qaybta sare ayadoo laga tagayo. tusaalaha xiga hierarchy oo scale ah waaye. markaan waxaa dhihi karnaa waxaa arkaynaa circles badan oo ku jiro mid yar. waxa uuna muujinayaa in kuwa waaweyn laga hor arki karo midka yar. haddii aan wax ka bedelno midabka sidaan ayuu noqonayaa. tusaalahan waa midka hadeertaan aan midabka ka bedelnay. wuxuu noqday circle oo midabkiisa yahay iyo circles kale oo geesaha ka jiro asagana midabkooda yahay khafiif yani. marka indhaha marka kuwaad waxay qabanayaan circleka yar ee madowga ah ee gudaha ku jiro. marka hierarchy oo color ahaa ku jirnaa isticmaalena weli. tusaalahan kale waxaa ka arki karnaa hierarchy oo midab ah yani weli colorska u isticmaalena, laakiin tookadan waxaa arki karnaa qaybta dhexda ku jirto in fast yani indhaheena ay qabanayaan marka koowaad markii laga soo tago qaybaha geeska, sababtoo ah markasto waxay indhaha u jeedaan ay qabanayaan qaybta dhexe ay ku jirto ee madowda ah. hierarchyan waa hierarchy depth ah. marka hierarchy waxa u isticmaalna midkan ama ay isha qabanaysaa midka hoos ku jiro ee dhaaga ah midabkiisa ayay qabanaysaa. marka depthiga qaybta hoose oo shadowga ku jiro midkaas ayay isha qabanaysaa. kaasaana waxa u isticmaalnay isagoo depth ah. waa kana asagana sidoo kale markaan waxaa loo sameeyey depth shadow oo kale, laakiin qaybta hoose waa daciif, qaybta sarene waa dhaag. marka indhaga waxay hor qabanayaan marka koowaad qaybta kore. tusaalahan kale oo colorska ku saabsan, markaan waxaa arkaynaa colorka midka u horeeya, shape-ka u horeeya oo kale wuxuu u muuqdaa mid yani indhaha naga soo galaya oo noo soo dhow, haddana wuxuu u muuqdaa yani mid kusii xigo, sii milmaayo oo sii baaba'ayo. tusaalayaashan kale isla eegno waxay muujinayaan mid kastaba doorka uu ku leeyahay hierarchy. bal aan galno tusaalahan koowaad. waxaa haysanaa ama arki karnaa tusaalahan mid index leh oo yani marba mar ka dambeyso oo wuxuu sheegayaa in loo sii socdo qaybta hoose, yani numbersuu leeyahay. sidoo kale ciwaano iyo ciwaano hoosaad oo boldi ah ayuu leeyahay, yani midba mid kale boldi uu kasii yahay. sidoo kale meelaha muhiimka ah ee calaamadsan si fiican ayuu iskula shaqaynayaan markii loo eego listiga. hierarchy waxaa loo isticmaalay halkan hab contrast, alignment, space, color iyo typeface ay u isticmaalaan. dukumentiga noo muuqdo kale intaasba waa loo adeegsaday.
tusaalaha xiga waa tusaale fudud oo qaabaynta dokumentiga inoo sheegayo. waxaa haysanaa messenger oo kala ah type alignment iyo type face, yani farta oo alignment loo sameeyey, sidoo kale farta la isticmaalay oo kala duwan iyo sizekeeda, sidoo kale weightka farta oo la isticmaalay iyo colorkeeda. intaasoo dokumentiga ku arki karnaa, laga soo bilaabo ciwaanka kore oo far waaweyn ah, next ciwaanka kusii xigo, baragraafka ku xigo asagana far gooni ah, midka kusii xigo oo asagana qaab kale u qoran, ciwaanka kale ee dhaxda ku yaala asagana alignmentigiisa wuxuu ku aadan yahay midka kore. marka intii aan sheegnayba way ka muuqdaan. midabadana waa arki karnaa oo qaybtan dhexe waxaa ka arki karnaa midabada qaar ka mid inuu yahay dhaag, qaybta kalena ay tahay xoogaa daciif. tusaalaha xiga waxaa arki karnaa ama haysanaa letterhead. waxay ku timaadaa noocyo kala duwan ama noocyo kala duwana loo samaysan karaa. waxaa loo isticmaalaa ama lagu muujiyaa brandiga ama loogada, yacni ganacsigaas uu leeyahay. loogada waxaa la geeyaa qaybta sare ee bidixda ah. waxay u muuqataa mid aad u qurxan. dhanka midigta waxaa noogu yaala adresska shirkadda, yacni baragraafkana waxaa lagu alignment gareeyay ama yacni lagu hagaajiyey midigta, yacni qaybta midigta, kaasoo marka contrastigeeda aad u fiican yahay markii loo eego fariin gudbinta. contactiga muhiimka ah ee shirkadda waxaa la dhigay qaybta hoose. aan isxasuusino marginka xoogaa in uu weyn yahay ayaa la moodaa. midaas waxay ku tusaysaa negative space oo qurxan inuu meesha ku jiro. waxaa ka sheekeynaya waa qaybta bidixda, yacni baragraafka markuu dhexda yaala qaybta bidixda kale waxaa ka arki karnaa negative space inuu ku jiro, kaasoo sameynayo designkaaga ama ka dhigaya mid nadiif ah oo na siinayo si wanaagsan inaan u aragno loogada. qaybta hoose ee waraaqda waxaa ku xusan qofka soo diray xogtiisa. sidoo kale waxaa haysanaa stroke line oo horizontal, kaas oo kala qaybinaya qoraalka. waa mid yaryar, maahan mid oo qasaya kuwa kale. tusaalaha xiga waxaa ka arki karnaa illustration ama composition. qaybta koowaad waxa uu u muuqdaa sawir, yacni si total marka loo fiiriyo wuxuu u muuqdaa sawir geed oo kale. waxaa aragnaa in jaantuska ama sawirkan oo infografiga ah uu ka bilaawdo qaybta hoose, uu ka bilaabanaya xogta midba midka kale oo kalarkiisa kasii daciifsan yahay ayuu jaranjar ahaan saas u socdaa. marka qaybtaas waxaa dhihi karnaa infografiga waxaa u isticmaalnay in qaab colors u kala saraysiino. kalarka dhaaga hoosuu ka bilaabanaa, dhaaga midka kusii xigo oo daciifka ah kan kusii xigo ilaa iyo laga gaaro meesha u sarayso. qaybta hoose markaa fiirin ayada waxaa yaala line, sidoo kale waxaa hoos sii yaala qoraalkaas marka wuxuu noo sharxayaa infografiga meesha noo yaala, numberskiisa iyo mid kastaba magaca uu leeyahay. tusaalaha waxaan ka arki karnaa kala saraynta in ay ku bilaabatay inay riixday xuduudaha si loo sameeyo layout. waxaa haysanaa marka hore number pageka ku taxan ee muuqda. kala saraynta habo badan ayay u jiri kartaa, farta haba yaryaraato, balse waxaa la barbar dhigay ciwaan ka weyn, waxaana sii muujinaya midabka ka caansan midkan. sidoo kale looma dhaqmaayo mid gaar ah ee waxaa loo aqoonsanayaa hal column oo dhex goonayo taytalka markaas ku jiro meesha. tusaalaha xiga waxaa inoo muuqdo hierarchy oo ah ciwaan weyn, midka kale oo yar, iyo qaybta baadhiga oo ah mid column ahaan loo geliyay. tusaalaha xiga waxaa arki karnaa sawir qof dumar ah ay tahay midka u sareeya kadib ciwaanka ka dambeeya. saddexda ugu muhiimsan ee uu ka kooban yahay waa title ballaaran, sawir, magazine ciwaankiisa. waxaa kale oo inoo muuqdo circle yar oo ciwaan farwaaweyn ku qoran oo dadka dhiirigelinaya in ay iibsadaan si ay u akhriyaan ciwaanada kale. tusaalaha xiga waa newspaper. waxa uu ina wada tusayaa dhammaan ciwaanada waaweyn. newspaperka sida uu kala horeeyo ciwaanada ayaa loo soo kala saaraa, waxaana la sameeyaa oo la siiyaa space badan sida midkan sawirka ku ag qoran, yani sawir iyo title weyna ku yaala meesha. waxaa halkan inoogu eg qodobka labaad ee design principle. haddaba isweydii, hierarchy ma u tixgelisaa designkaaga? sensitive ma yahay hierarchy? visual marka abuuraysid sidee ayuu kula yahay dhanka designka qodobkan? ama hoos noogula wadaag fikir iyo aragti waxa ahayse. waa inuu cashirka xigo. mahadsanid. isku soo noqod wacan. graphic design ma aha keliya in wax layskaga fikiro kadibna la sameeyo. graphic design waxa uu leeyahay rules iyo xeerar la tixgelinayo markaad rabtid inaad design samayso. muuqaalkan waxaa ku qaadaa dhigi doonaa alignment oo ka mid ah
design principle waxa uu yahay qodobka saddexaad. designka markaa joogno alignmentiga waxa uu isticmaalnaa inaan ku hagaajino qoraalladeena, inaan group kaga dhigno elementiska oo ka dhigno wax yacni markaas muuqanayo qurux badan. sidoo kale inaan u sameeyno qaab dhismeed yacni qurxoon. waxaa jiro laba alignment oo kala ah edge alignment iyo center alignment. waxaa dhigi karnaa edge alignmentiga waxa waaye oo gidaarada leh, yacni geesaha afarta gees, midig ha noqdo, bidix ha noqdo, kor ha noqdo, hoos ha noqdo, afartaas dhinac waxaa dhigi karnaa edge alignment. waxaa kaloo jiro wax la yiraahdo center alignment. isaga wuxuu noqon karaa qaybta dhexe, sidoo kale iyadoo horizontal iyo iyadoo vertical ah. alignmentiga waxaa loo isticmaalaa in aad ku soo saartid aragti gooni ah oo qurxon. haddii goor waxaa wanaagsan in aad aqoon u leedahay waxa aad samaynaysid markii aad ku jirtid alignmentiga. alignmentigan waxaa ka arki karnaa saddex nooc. mid waa alignmentiga wuu iska wanaagsan yahay oo bidixda mid ka jiro waaye. midkan kale alignmentiga xoogaa waxa waaye qayb baa hagaagsan, qaybna ma hagaagsan. midka u dambeeyo oo midigta asagana waxa waaye wax alignmenti wanaagsan ma laha oo waxa waaye mixed. waxaa dhihi karnaa kan koowaad hadda soo qaadano in markaa fiiriso alignmentiga qaybta kore ee saddexda kore way isla siman yihiin. qaybta dhex markaa fiiriso aad iskula siman yihiin, ayadana qaybta u dambaysa markaa fiirisona way isla siman yihiin. marka ayagoo kala shape ah oo kala cabir kala duwan, haddana lagama bixin alignmentiga oo dhinac kasto way ka siman yihiin. sidoo kale alignmentiga haddaa fiirina asagana wuxuu noqonayaa waa mixed. marka alignmentigan waxaa dhigi karnaa mixed waaye. mixed markaa leenahay waxaa waaye yacni ma laha wax oo yani laisku waafaqsan yahay oo tusaale la dhigi karo noocaana laga dhigay alignmentiga, laakiin waxa waaye waa laisku yaaciyey. tusaalahan waxaa dhigi karnaa grid waaye. marka gridka waxaa loo isticmaalaa lineska oo kale. practicada markaa gaarna waxaa arki doonaa ayadoo designkaaga gudaha inaa kaga saxdid oo kale aad u isticmaali kartid. marka qaybtan hadda ayadoo vertical ah iyo ayadoo horizontal iyo vertical iskugu jirto, yacni ayadoo column iyo row isugu jirto iyo ayadoo column kaligeed ahaa ujeednaa hadeertaan. qaybahan aa ujeeda hadeertaan waa alignment badan oo laisku keenay. tusaalaha koowaad hadda soo qaadano waxaa arki karnaa 3 column iyo alignmentiyadooda. yacni alignmentiga 3 column markaan leenahay qaybta hoose waxaa noo yaala 3 column. sidoo kale qaybta kore waxaa noo yaala sawir weyn oo title leh, ciwaan leh. ciwaanka marka wuxuu yaalaa qaybta hoose, sawirkana qaybta sare. marka ciwaanka iyo sawirka markaa isku fiiriso way isla eg yihiin, kalama weyna. yacni gidaarada markaa fiiriso ma kala baxsano. tusaale sawirka inuu dhexda ku jiro oo titleka weyn yaho kale ma aha. alignmentiga markaan leenahay waa kana way isla siman yihiin. tusaalaha xiga asagana waxaa dhigi karnaa alignmentiga wuxuu iskugu jiraa qayb jiif ah iyo qayb joog ah. oo hadda tusaale waxaa arki karnaa qoraalka qayb yacni wuxuu u qormayaa qaab oo column ah, qaybta kale wuxuu u qormayaa soo paragraph ah, qaybta wuxuu ku jiraa oo dhexe. marka alignmentiga asagana asagoo kala duwan qaabka oo qoraalka u qormaayo, haddana waxaa ilaalinay qaabka uu muuqanayo alignmentiga in aana laga bixin dhinac kasto sidoo ka noqonayo sidii saxda. tusaalaha xiga waa yacni in la sameeyey composition kaasoo leh micnaha left. contrastiga u dhexeeyo alignmentiga column kasta waxa uu sheegayaa dynamic inuu yahay. markaa fiiriso sidii dhinac kasta ooga siman yahay oo leftiga. qaybta kore waxaa noo yaala line yar, ciwaan oo bold iyo regular ah. sidoo kale 3 column aa noo yaalo qaybta hoose. 3 column marka waxaa arki karnaa inay yihiin qaab dynamic ah, alignmentigoodana wuu saaxan yahay. tusaalaha xiga waxaa arki karnaa in aan sameynay qaybta kore ciwaan weyn, qaybta hoose markaa imaado paragraphka marka alignmentigiisa labada dhinac wuu siman yahay, justify waaye. markaa fiiriso
justify waa labada gees uu ka siman yahay laakiin qaab wuxuu u yaalaa oo saddex xagal ah macnaha qaab saddex xagal oo dhinac janjeero u yaala marka tan waxay ka dhigaysaa yani mid yani aragtida qofka uu xiiseenayo markuu arkayo tusaalaha xiga waxa uu ina tusayaa abstract yani qoraal abstract composition ah oo markaas isku yaacsan oo isku sii daayo wax alignment iyo wax dhan loo fiirin marka kan oo kale waxa dhigi karnaa wax alignment looma tixgelin tusaalahan kale asagana waxa leenahay waxa uu inoo sheegayaa tusaalahan kale waxa uu inoo sheegayaa in uusan lahayn wax kala sareeyo ama toosnaan ah uu leeyahay ama yani in loo sameeyay tusaale alignment justify ama center wax noocaas ha noqdo intaba looma fiirinin marka kan waxa leenahay waxa looma fiirinin cashirkan waa cashirka saddexaad ee design principle aan isweydiino markaad wax design gareynayso ma isweydiisaa alignmentiga isticmaalayso ma saxan yahay mise waxaa dhahdaa bal aska wadno wuxuu noqdaa aragno bal nala wadaag aragtidaada alignmentiga markaa isticmaalaysid midkee isticmaashaa sideena u tixgelinsaa designkaaga markaa aad design gareynaysid ama shaqo aad qabanaysid hoos noogula wadaag wixii comment iyo aragtee mahadsanid waa inoo cashirka xiga isku soo noqod wacan graphic design markaa joogno sida horey usoo sheegnay in badan wuxuu leeyahay rules la tixgelinayo sida ay u kala sareeyaan in loo kala hormariyo muuqaalkan waxaa kaga hadli doonaa ama ku qaadaa dhigi doonaa qodobka afraad ee design principle kaas oo ah balance muuqaalkan gudihiisa waxaa ku wadaagi doonaa tusaalayaal la arki karo balance waa habka oo uu muuqanayo designkaaga guud waxa balance uu isticmaali karnaa in uu xasilooni aan u yeelno designkeena oo uusan noqon wax hayacda designka marka la joogo waxaa la isku dayaa sidii loo soo jeedin lahaa dareenka dadka si loo gaaro ahdaafta laga leeyahay designka oo ah in uu gudbiyo fariinta waxaa jiro 3 nooc oo balance ah waxayna kala yihiin symmetric balance radial balance haddaad fahanto 3dan balance waxaa kuu suuragalayo in aad garato ama aad doorato balancega kugu habboon markaad isticmaalayso designka tusaalahan ila eeg waxaa haysanaa symmetric balance haddaba symmetric balance waa mid isla eg labadiisa dhinac sidii miraayad oo kale dhinaca kale wax yaalo iyo dhinaca kale wax yaalo way isla eg yihiin midba mid kale waxba ma dheero markastaba waa wax isku miisaaban marka dhinac kasta ka eegno ha ahaado textiga shapeska iyo sawirada la isticmaalay tusaalaha xiga waa asymmetric balance si fudud waa cagsiga symmetric balance oo haddaa eegto tusaalahan waxaa kuu muuqanayo wax aan isla sinnayn labada dhinac qayb ka mid ah ay badan tahay qaybta kalena ay yar tahay symmetric balance waa ka dynamicsan yahay markii loo eego asymmetric balance macnaha markaa leeyahay dynamic waxaa ka wadaa yani aragti ahaan markii la dhaho qurux ahaan markii la dhaho symbol ahaan markii la dhaho symmetriga markasto qurux badan oo wanaagsan asymmetric waa wax aan balance ahayn oo labada dhinac isla sinnayn oo xoogaa yani indhaha markii la fiiriyo hal dhinac u kala badanayso waxa uu diiradda qofka ku hagaa fariinta la gudbinayo markaa isticmaalaysid symmetric tusaalaha xiga waxaa dhigi karnaa radial balance waa in dhexda la isugu geeyo qaybaha ugu muhiimsan xogta si dhexda loo arko marka ugu horeysaba ama libiqsiga koowaad ee aragtidaada waxaa fududaanayso in aad aragto ama diiradda aad saarto qaybta dhexda ah ama centerka qaybtan waxaa dhahaynaa marka oo noo muuqata deertaan radial balance ayaa dhihi karnaa intaas waxaa kaga gudbaynaa waa 3 qayb ee uu kala baxo balance waxay ku xiran tahay isticmaalkaaga iyo ujeedada aad isticmaalayso markastaba oo si cilmiyeysan u adeegsato nashqadeynta waxaa soo saari doontaa waxyaabo lala dhaco oo ay indhaha jeclaystaan bal isweydii naftaada
ma tixgelisaa balance qaybtee ayaa ka isticmaashaa balance ma wax wanaagsan baa mise wax xun in la isticmaalo balance yani design markaa joogna ka sheekeynayna noogu reeb wixii fariin ah qaybta commentiga mahadsanid waa inoo cashirka xiga muuqaalkan waxaan ku arkaynaa proximity oo ah qodobka shanaad ee design principles proximity waxaa leenahay waa in grouping iyo shaping la sameeyo designka markaa joogno waxaan u isticmaalaynaa proximity laba arin oo muhiim ah midka koowaad waa in connection la sameeyo proximity waxa uu abuuri karaa xiriir ka dhaxeeya visual elementska iyo compositionka wuxuuna abuuri karaa wax tayo leh oo isu dhow kala sareeyo organization iyo structure leh midka labaad ama sababta labaad waa in la kala jaro connectionka proximity waxa loo isticmaali karaa inaan wax xiriir ah lala sameynin visual elementska si loo kala jaro ama loo kala gooyo qaab dhismeedka isku xiran iyadoo visual elementska la kala fogeynayo ama la isku dhaweynayo waxaan apply gareynaynaa design principle of proximity waa muhiim markii loo eego design principle yani hierarchy asoo qaadanay markii loo eego ama kala sareysiinta markii loo eego spaceka u dhaxeeya visual elements ama ay ku wada xiriirayaan waxay noqon karaan dynamic waxayna ku xiran tahay ujeedka loo adeegsado tusaalahan ila eeg dhammaantood hal fariin ayaa ku wada qoran laakiin waxay ku kala duwan yihiin qaababka loo isticmaalo hagaajintooda marka designka la sameynayo markaad designka joogtid hal mid isku day inaad ka fogaato waxa aad sameynayso haddii lacala ay kala duwanaadaan muuqaaladooda yuusan ku go'aaminin muuqaalka markaas aad aragtay yani designada kala duwan markaad sameyso yani go'aankaaga ha ku saleynin yani designka qaabka u muuqda ee waxaa fiirisaa ruleska design principleka ma maray iyo ruleska kale ah hore usoo qaadanay markii visual elementska ay si random ah u muuqdaan ama hoos aanan yani qaab aanan wanaagsaneyn markay u muuqdaan waxay u yaalaan si yani aanan laga fikirin qaabka loo dhigay hada tusaale midka noo muuqdo kale wuxuu iskaga yaalaa sida line oo kale oo qaab caadi la iskugu xijiyay marka wax micno ah oo gaar ah ma sameynayso haddii proximity si sax ah iskugu geeyno waxaa noo soo baxayo negative space kaas oo u muuqanayo hab cusub sida hadda midkan hor yaalo kale awilka wuxuu ahaa sida caadi mid line oo kale haddana wuxuu noqday qaab yani u eg saddex xagal yani su'aale sambuuski oo kale qaab sambuus u eg oo noqday marka kaas waxa keenay yani qaabka la iskugu aadiyay waxa soo saaray wax kale oo cusub meesha ka soo dhaxbaxay marka tan oo kale indhaha qofka waxay controleysaa in uu isla markii soo jeesto waxaan waxay yihiin qaabka noqonaysa inuu maskaxda ka fikiro oo qofka maskaxdiisa ay ku daawacmaan waxaan oo kale markii la kala sii daayo oo yani aan wax loo fiirinin ayadana sidaan oo kale noqonaysa sida kii hore oo kale calaamadaha jira iyo logooyinka si wanaagsan ayaa u naqaanaa oo adduunka ka jiro waxay ka yimaadaan isugeyn shape iyo proximity kuwaasoo ka wada shaqeeyay sidee ugu daawacmi lahaayeen maskaxdeena una xusuusan lahayn waqti badan yani tusaale loogada markii la sameynayo waxa laga fikiraa qofkan ilaa inta in la eega rabtaa yani maskaxdiisa inay ku daawacmanto ama uu fahmo oo yani si fudud aysan oga bixin maskaxda marka loogada markii la sameynayo waxaa laga fiiriyaa symbol proximity-ga iyo creativity inay noqoto marka wax muhiim ah waa proximity waa qodob awood badan ku leh design principleska proximity oo aad si wanaagsan u isticmaasho waxay kaa saacidaysaa inaad soo saarto design wanaagsan oo cajiib ah halkaas waxaa inoogu eg qodobka shanaad ee design principle ee ah proximity markaad designka sameynayso isweydii proximity sidee u isticmaashay micno gooni ah ma gudbinayaa markasta oo aad iska eegto designka aad sameynayso waxaa kuu suuragalaya inaad soo saarto wax cilmiyeysan oo dadka kale la tacajubayaan macnaha markay arkaan waa inoo cashirka xiga insha allah muuqaalkan waxaa ugu hadli doonaa qodobka 7 ee design principles waana simplicity waa in la yareeyo lagana saaro designkaaga waxa aan muhiimka ahayn hadafka ugu weyn ee design waliba laga leeyahay ama laga rabaa waa in impression ama wax cajiib ah laga dhiga impressionka ugu dambeeya waa haddii designka uu gaaro hadafkan
wuxuu buuxinayaa ujeedka dhabta ah si loogula xiriiro. Graphic design markii la joogo kastuu lagu dadaalo in simple laga dhigo designkaaga waa markastuu uu si qurux badan u shaqeeyo. waxaa jiro heshiis guud oo la isku raacsan yahay kaas oo ah markasta uu designkaaga ka yaraado midka kale waa markasta uu ka sii qurux badnaado. yacni waxa ula jeedaa designkaaga xogta ku jirto sawirada qoraalada markii uu yar yahay iyo markii uu badan yahay way kala yihiin oo way kala qurux badan yihiin. markuu yar yahay oo simbalka yahay xogta ku jirto waxaa dhihi karnaa waa simplicity uu qurxan yahay designka. sidoo kalena fariinta uu gudbinayo ayaa loo arki karaa si nadiif ah. sidaas awgeed waxaan tixgelinaynaa simplicity si loo abuuro design isku dheelitiran oo saameyn leh. designka simbalka ah way fududahay in la fahmo waxayna u badan tahay in la sameeyo aragti waarta. dadka bilowga ku ah designka waxay u arkaan in simplicityga uusan wax muhiim ah ahayn ama la xiiseynin. si kastaba ha ahaato simplicity waxaa loo aqoonsaday in lagu daro ama uu gaarsiisan yahay functionka. midaan waa waxa kala soocaya nashqadeeyaha ama designerka hiwaayada u leh iyo midka professionalka. waxayna u baahan tahay khibrad, kalsooni iyo anshax ama discipline. mid ka mid ah xuluumta ugu adag uguna xirfada badan nashqadeynta waa garashada sida loo tifitiro qayb ka mid ah designka. markaan apply gareynayno ama dabaqeeno simplicity waa inaan ka fogaanaa visual elements inaan xad dhaaf ka dhigno. waa inaan isku daynaa aana ka gudubnaa hal fikir oo adag beddelkii aan adeegsan lahayn wax badan. simplicity markaa tixgelinayno waa inaan ka saarnaa design-keena ama in badan aan ka yareynaa xogaha aan muhiimka ahayn ee aan loo baahnayn. markasta oo simple noqdo designkaaga waa markasta uu noqdo design cajiib ah oo sahlan in la fahmo. sidoo kale waxyaabaha badan oo hal abuurka ku socdo ayaa keeni doono jahwareer iyo waayo aragnimo yari markii loo eego dhanka bulshada ama dadka aanan designka wax badan ka siinin. simplicity ama fududaynta maaha in laga xayuubiyo designkaaga xogaha muhiimka ah oo laga dhigo mid faaruq ah. waxaa loo baahan yahay wada shaqaysiinta iyo isu dheelitirka visual elementska. markaad designka ku jirto waxaad u baahan tahay inaad ka fogaato ama iska ilaaliso tartanada ama barataniska adigoo ilowsan xeerarka. visual elementska isku dhafan waxay ka shaqayn kartaa gudbinta fariin fudud. tusaale image texture iyo pattern texture waxaa laga yaabaa inay u muuqdaan wax adag laakiin kuwaani waxay u shaqeeyaan si ay u soo jeediyaan niyadda iyo dareenka. fikradaha ay weheliso umalaynta looga fudud ama fariin bolli ah. tani waxay noqon kartaa wax cajiib ah markaad ka fikirto qaar ka mid ah logooyinka ugu tunka weyn. waa wax caadi ah in loo arko simplicity ku qotonto qurux laga soo shaqeeyay. xayeysiimaha ayaa lagu arki karaa dhaqdhaqaaq soo jiidasho leh. badanaa xayeysiisku wuxuu lahaan doonaa dhowr ilbiriqsiyo si fariin loo gudbiyo. marka waa inay noqotaa mid cajiib ah oo sahlan in la fahmo sida ugu suurtagalsan. inta badan motion graphicska ayay qusaysaa muuqaaladaas dhaqdhaqaaqayo. had iyo jeer qofka motion graphicska ah ama baranaya waa qasab waxa uu sameynayo in uu yaqaanaa oo designka ruleskiisa u fiiriya. xayeysiimaha waxay caadi ahaan rabaan inay kugu soo jiitaan mid ka mid ah visual elementska oo dhaldhalaalaya oo ay weheliso fariin fudud boldi ah. waxaa inta badan loo arko wax fudud ayaa ah waxa ugu adag markii loo eego designerka oo dhinacyo badan ka soo saxayo juhdi badanna gelinayo. haddii iswaafajinta muuqaalkan aan si wanaagsan loo fulin waxay keeni kartaa fariin mashquul badan dhaliso, lagu wareero fariinta uu xambaarsan yahay posterka, taasoo keeni doonto in aanan la fulin ujeedada la rabay.
in la tixgeliyo simplicity ama fududaynta ayaa u sabab ah inta badan in wax qurux badan loo arko sumadaha. Design-ka liita wuxuu noqon karaa mid aad u adag oo ku mashquulsan midabyo badan. Calaamadaha ama loogooyinka ugu wanaagsan ayaa ah kuwa ugu fudud. Waxaa halkan inoogu eg qodobka 7 ee design principle. Markaad wax nashqadeynayso, isweydii sidee u tixgelisaa simplicity. Sidee ayuu clear ama mid la fahmi karo u yahay design-kaaga, ama fariinta uu xambaarsan yahay ma tahay mid la fahmi karo. Ma yahay design-kaaga wax cajiib ah? Ma jiraan wax aad u baahan tahay ee aad rabto inaad ka bedesho design-kaaga si aad u fududeyso? Maxaase adiga ku cajab geliyo? Hoos nugula wadaag wixii comment ah. Waa mahadsantahay. Waxaan rajaynayaa casharkan inaad ka faa'iido wax haba yaraato. Waa inoo casharka xiga insha Allah. Muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa qodobka 8 ee design principle oo ah function. Function waa tixgelinta objectiga qayb ka mid ah shaqo horey loo qabtay iyo sida design wanaagsan loo soo bandhigo loona fuliyo si loo helo bardhamaadka. Muhiimadda ama hadafka ugu weyn ee design-ka waa inuu gudbiyaa fariin uuna noqdaa wax cajiib ah. Laakiin waxaa si la mid ah muhiim u ah in aragtida saxda ah la sameeyo si loo gaaro natiijada saxda ah ee lagu talagalay. Horaantii imtixaanahan waxaan sheegay in aan aaminsanahay graphic design-ka in uu yahay midnimada laba xog iska soo horjeedo, muujinta artistic iyo practical la taaban karo. Markaad tahay creative designer, labada xog mar walba maskaxdaada ayay isku khilaafi doonaan. Marka aad awooddo labadan xog inaad si wadajir ah u wada socdaan, kadib waxaad abuuri kartaa visual communication weyn. Marka aan abuurno qayb ka mid ah graphic design-ka, inta badan waxaa jiri doono shuruud gaar ah taas oo loo baahan yahay in la fuliyo iyadoo ku xiran tahay hadba culayska hawsha inta uu la egyahay. Waxaa jiri kara hal ama dhowr shuruudood. Waxa uuna shuruudahaas ka helaa macmiilka qaab qoraal ahaan ka hor inta uusan nashqadin. Waxa uuna shuruudahaas ka helayaa qofka designerka ah macmiilka qaab qoraal ahaan ama mid hadal ah ka hor inta uusan nashqadeynta bilaabin. Qayb kasta oo shaqo ah waxaa jiro macluumaad muhiim ah oo u baahan in la fahmo. Tani waxay xaqiijinaysaa ama sahlaysaa designerka in uu dhigo booska ugu habboon si loo soo saaro hal abuur sax ah oo xalkiisa wata. Waxyaabaha macmiilka looga baahan yahay in uu caddeeyo waxaa ka mid ah overview. Waa in uu soo bandhigaa fikradda mashruuca iyo waxa dhabta ah loogu talagalay. Waa inuu si cad u iftiimiyaa audience ama targetka uu rabo ama dadka uu target gareynayo uu rabo in uu macmiilka u noqdaan, uuna doonayo in uu baahiyahooda xaliyo iyo macluumaad kastaba oo muhiim ah in la ogaado. Shuruudaha ama requirementiga ayaa u qeexi doono waxa looga baahan yahay si hal mar looga qaado xogta loo isticmaali lahaa digitalka iyo printerska guud. Natiijada la rabo waa in macmiilka uu sheegaa waxa uu rajeynayo in uu gaaro marka la isticmaalayo graphic design, sida uu rabo in ay ka falceliyaan dadka shaqada design-ka la sameeyay iyo sida ay u fikirayaan. Waxaa laga yaabaa in uu soo jeediyo muuqaal ahaan sida uu rabo, midab ahaan, kuwa la isticmaalayo iyo wixii la mid ah. Briefka ama dokumentigan wuxuu noqon doonaa hal abuur xadidan ama fasaxaya. Briefkan waxa uu hagaajinayaa caqabadaha iyo xuduudaha celin lahaa designerka si uu u soo saaro hal abuurka saxda ah ee ku habboon. Xogtaas waxay noqon doontaa mid samaysa hal abuurka designerka. Haddaba haddii designerka uu baalmaro waxa macmiilka uu brief ahaan ama dokumenti ahaan uu siiyay, waxa uu la mid yahay isagoo hareer maray function. Muhiimadaas ayuu leeyahay functionka. Marka la waafajiyo wixii macmiilka inoo sheegay, wax wanaagsan ayaa inoo soo baxaya. Haddaba isku day inaad samayso wax wanaagsan oo kala leh mudnaan ama kala horeysiin. Midan waa meesha laga keenay form iyo function.
kuwa bilowga ah si fudud waxay iskaga qaataan practical design-ka in aysanba wanaagsanayn ama la xiiseynin. si kastaba ha ahaatee designerka professionalka ah waa in uu dabaqaa functionka. kala horeysiinta waa in had iyo jeer loo fiirshaa functionka sida waxa u wanaagsan yihiin inta lagu guda jiro researchka iyo designka. waxa muhiim ah ee la rabo in la fahmo waa requirementska iyo target audience-ga. sidoo kale tixgelinta luqadda, midabka iyo layoutka ayaa ku suuragelinaya in aad dhiirigeliso natiijada saxda ah. sharci ahaan markastaba isweydii why ama sababtee ayaa u isticmaalaysaa midabkaas, sababtee ayaa u isticmaalaysaa fartaas, sababtee ayaa isugu hagaajinaysaa habkan, sababtee ayaa u isticmaalaysaa shapekan iyo wixii la mida. had iyo jeer isweydii sabab, yani wax kasta sabab, kadib waxaa kuu soo bixi doona ugu dambeyn wax qurux badan oo dhinac kasta ka diyaarsan. waa in qofka had iyo jeer isku dayaa inuu iska ilaaliyo inuu qaato go'aan aan loo meeldayn. haddii la dareemo tani waxay hoos u dhigi kartaa qayb ka mid ah shaqadada. si kastaba ha ahaato, dulmar ku sameey creative briefka ama dokumentiga uu macmiilka kaaga tagay. wax kastaba oo la qabtay sidoo kalena maskaxda ku haay in aad ku dabaqday function. halkan ha inoogu joogo qodobka 8aad ee design principle oo ah qodobkii ugu dambeeyay. waxaa ilaahay mahadi ah in aan dhammaynay kooraska hagaha bilowga naqshadaynta. waa inoo muuqaalka xiga iyo shaacinta waxaa xigi doono insha Allah. mahadsanidin.